السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحاب تقاليق أو مركلي مقال كله حسبياني ولا شيء سودا سلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قصة إشراق ومد كم ذا قسوين كي عن مقالنيتي وياب كبضنيد هذين بقصدي وياب كبضنيد نقولين قبل ما حلي هذا إشراق وتمضى سعربت مد كم ذا أي ودلتي إشراق واحد رشة كذا وحيسوا بالله بنسا سديتن يتطبدي أو إذا وادتك الأشياء سديتن يتطبدي. هذا قبل لا هذا إشراق ما قرنيسو مين قرنين يعني أبهد يهودي حقيقي هاي دلي وحيسو عقلية ستو قرات سوية لتا يدو كجرتا ما يدو أي هايستان أي سو كرصدين فامل أبهد يهودي يعني أي لينيسي لكن مركي ويناتي waxay ogaatay familkan in aabaheedii hooyadeedii dhalay inayna ahayn ee dadkani ka soo qaateen meesha caruurta bila waalidka lagu koriyo meeshaas caruurta bila waalidka lagu koriyo caruuraha lagu koriyaa inta badan waxay u badan yihiin caruuro si sharci darro ah ku dhashay oo inta la dhalay la iska tuuray hooyooyinkii dhaleen ama isbitaalada ay kaga dhuuntaan ama meelaha luqluqyadii guryaha intay ku dhalaan ay qashinka ku daraan ama jid ay dhigaan adigu masjid hortii iyo meelahaas ilmaha la dhigay ee laga soo qaaday dawladdu ee aabihi hooyaha u tahay ay kuriso dadka marka la siiyo dadka bila waalidka bila waxaan leeyahay caruurta waa la siiyaa qof caruurtiisa waa weynaatay oo kale ilmaha rabo waa la siiyaa qofka marka la eego dhaqaale ahaan caafimaad ahaan dhinac walba inuu ilmahan qaadi karo mas'uuliyadiisa oo ka soo bixi karo ayaa lagu wareejiyaa sidaasuna qofkaasi ilmaha ku qaata oo mas'uul kaga noqda gabadhan marka qoys baa soo qaatay oo soo korsaday qoyskaas qoys hantiilayaal bay ahaayeen wax caruur may dhalin markay ogaadeen inayna ilmo dhalaynin bay doonteen marka ilmo yar gabadhan yar ee Ishraaq baa la soo siiyay oo xilliga aad u yar ilaa 3 bilood iyo badh jirtay gabadhi way soo weynaatay 6 sano 5 sano 4 sano yani xusuusteedu xilliga ilmaha ay soo bilaabanayso xusuustiisu waxaan soo koray bay anigoo aad la ii kolkolinay sida boqoradii guriga yani ugu nool sida amiiradii wax allaala waxaan u baahdo iyo waxaan rabo iyo waxaan doonay waxaan niyada ku qabtaba sida horteeda iyo hareerahayga ay u yaalyaalaan qolkaygu uu qurux badan yahay sida boqoradii la dhaqmayo waxbarasho la geeyay aabaheedii hooyadeed marba mid baa iskuulka geeyay marba mid baa ka soo celay yani aad kolkolin iyo jacayl iyo xanaan iyo kalgacayl bay ku soo kortay laakiin markay soo weynaatay ee soo gaadhay 15 sano 14 sano waxa loo sheegay xaqiiqadii ahayd gabadhan in meesha agoonta laga soo qaaday aabahay hooyadan inayna dhalin laakiin inay jecel yihiin inay gabadhoodii tahay dib la'aan dhaleen ay soo korsadeen oo xaq ku leeyihiin oo magacooda siiyeen dhaxalkooda ay leedahay laakiin xaqiiqada runtii ay tahay gabadhan in meel laga soo helay in laga soo qaatay college-ka agoonta ilmaha bila waalidka meesha lagu koriyo gabadhu waxay tiri marka ani in meel la iga soo helay iyo meel bila agoon in bila waalida la iga soo qaaday waxaas wax qurbaa igu ma yahayn sababtoo aabihi hooyo jecel oo qaali ah oo qiimo badan ayaa soo koriyo waxay tiri nolol raaxa ah baan ku noolahayba waxaan aaminsanahay dadkii dhalay haday haysan lahaayeen noloshan inaan ku noolaadeen haddaan nolosha ugu sarreysa ku noolaan lahaana de tan un baan ku noolaan lahaa marka wax qurbaa igu ma yahayn in meel la iga soo helay iyo inaan waalidkan ayna si runa iyo dhalin gabadhii waxay tiri waxaan dhigan jiray marka iskuul gabadhii yartahay iskuulkii marka dhiganaysay iyadoo dugsi sare dhigata oo jirta 16 sano iyo 17 sano iska 17 jir iyadoo ah baad macallimiinta iskuulka dhiga waxa kamid ahayd gabadh la yiraahdo Faatima gabadhaas la yiraahdo Faatima ninkeeda marmar oo imaan jiray iskuulku ka qaadi jiray marmarka qaar iskuulku keeni jiray marmarka qaar cunto iyo waxyaalo intay wacato iyadoo iskuulka joogta ay u dirsato u keeni jiray ninkeeda marka Faatima waxa la yiraahdaa Caadil waxaan arki jiray bay tir marka Ishraaq Caadil oo marmar qolka ustaad Faatima ka soo baxaya ama sii galaya waxay tiri gabadhii yartahay dhalinyaradu markay muraahiqiinta yihiin oo iska dhib badan yihiin 16 17 meelaha markay marayaan 18 iyo wixii ka hooseeyaba ee 14 ka sareeya qalbigoodu waxaad u malaysaa wuu iska furan yahay waa albaab furan de soo xalba iska ma galayo dhalinyarada xilligaas oo kale qalbigoodu iska furan qofka yaraan ba iska jeclaanay gabadh ba macalinkeeda iska jeclaanay wiil ba macalimadiisa iska jeclaanay waxba iska jeclaanana jacaylka ku badan jacaylka ku horlamiya ma ogi gabadhii yarada ahayd Ishraaq macallimadii Faatima ahayd ninkeedii uu iimaanay haba jeclaataba ninkeeda waxa la yiraahdaa Caadil waxay tiri waxaan is arkay ma garanay sababta bilaa sabab bidooni muqaddima ninkii ahaa Caadil qalbigayga hagalaba aan jeclaado maalinkuuna Caadil iskuulka iimanin una Faatima ka qaadin ama keenin ama wax u keenin maalin iima aha maalinkaas waxay ii tahay mugdi si kasta ayaa mararka qaar iyada xiisaduhu dhamaadeen oo la rawaxay oo waqti yar waxaad la gaaray bal iskuulka u sii joogi jiray inta macallimad Faatima ay ka baxayso macallimad Faatima markay baxayso meelahan istaagi iskuulka hortiisa ama xafiiskeeda iyadoo iskaga jirto ninkeedu imani kadib uu soo dagi guduhu soo gali markaas israacayaan gabadhii yartaad waxay tiri ninkii Caadil baan waxaan u jeclaaday si saa'id si xad ka bax ah
waqti kadib gabadhii Faaduma ahayd gaari bay soo gadatay. macallimad Faaduma markii gaariga soo gadatay waxay tiri naxdin bay ii ahayd sababtoo Caadil mar dambe ma arkayo dee Caadil wuu keeni jiray wuu qaadi jiray wuu iimaan jiray mar haddii gaari soo iibsatay Caadil iskuulka ma imaanayo murug bay ii ahayd bitir maalinkay macallimad Faaduma ay gaariga soo gadatay muddo waxaan fikraba maalin baa waxaan go'aan ku gaadhay gabadh ay qaraabo yihiin macallimad Faaduma gabadh ay qaraabo yihiin baa waxaan ku yiri bitir iyaduna macallimiinta iskuulka dhiga ah waxaan doonayaa macallimad Faaduma inaad isiisid nambarkeeda waqtigaas waxa lagu jiraa waqti fasax ah oo iskuulka uu xiran yahay macallimadii Faaduma ahayd nambarkeeda isii gabadhi nambarkeeda bay isiisay waxaan idhi waxaan doonayaa inaan booqdo oo gurigeeda aniga hooyaday aan booqano macallimadii nambarkeeda la ii soo diray waxay tiri macallimadii nambarkeedii guriga ahaa baan wacay waxa iga qabtay ninkii ahaa Caadil markuu iga qabtay oo sidaas waxay tiri oo u yiri halo baan idhiya salaam alla waa kana de codkii qofkii aan rabay in raadinay baba teleefankii iga qabtay cabaar baan aaminsan markaas mar labaad markuu yiri halo yaan idhaa waa Ishraaq waxaan ahay gabdhihii iskuulka dhiganay Faaduma ay u ahayd macallimiinta Adoraaliya ustaad Faaduma iigu dhib macallimadii baa la iigu yeeray waan salaamay haye Ishraaq gabadheedii ma fiican tahay haye maxaad haysaa waxaan ku yiri waxaan doonay inaan ku salaamo waxay tiri waad mahadsan tahay waxaan ku yiri marka waad iska ogtahay waqtigii waxa lagu jiraa fasaxa iska caajis iyo qof in la soo booqdo iyo dalxiis in la aado iyo mooyeen aniga waalidkeena sanadkan ma aan dalxiis iyo meel ma aan aadin ka waran hadaan ku soo booqano guriga aniga hooyo hadaan kugu soo booqano gurigaaga kugu nimaadno nacasuuntid qof la casuuma la arki jiray markay oo dadka lagu yiraahdo aan ku casuumay qof leh hal ay casuumo والله بلا عنق تير وعجيب gabadhii waxay tiri cabaar bay yar aamuste malaha way yaabtay waxay isla casuumad nooceeya maxay kuugu imanayaan haddana waxay tiri waaye soo dhawow gabadheedii mar walba iman kartaa gurigaagii wadii iman kartaan soo dhawaada waxaan ku dhibay tiri haye bari galabkii baan ku imaanayna galabkii baan guriga tagnay malaha waxay tiri Caadil way u sheegtay inaan guriga imaanayna inay dad u soo socdaan ma garanayo mise shaqo ku maqnaa waxay tiri ma garanayo guriga markaan tagnay muu joogin Caadil waxaa naga furtay bay tiri macallimadii Faaduma ahayd oo macallimad Faaduma waxay tiri iyadoo xijaaban oo iskuulka joogto baan anigu arki jiray iyadoo gurigeeda joogto maba aragba adduunyada wax ka qurux badan maba jirtaba waxay tiri saas markaan gabadha u arkay quruxda top inta iska xiran tahay deetimo u sii deysan bay gurigeeda iska joogtaa dadka u imanayna waa dad haween Soomaaliya ama u baahan marka xijaabiyo waxayna xirato quruxda waxay tiri macmacaan bay noo keentay iyo shaaxata qaabka ay u hadlayso siday u fadhiisanayso shaax markay noo shubto qaabkay noogu dhiibayso shaaxeedu suu u macaan yahay macmacaankeeda gabadha waxay tiri quruxdeedu timaha madaxeeda ku yaala kaliya de malaha hal xabo kamid ah anigu maba gaadhaba anigi markaas aan waxay tiri candhoofteeda dib u liqay waxaan isir indha adeygaaga Ishraaqay indha adeygaaga gabadha sidaan u quruxda badan ninkeeda rabtaa inuu ku jeclaado oo jeceshahay oo waxaad gurigan u timid ninkii dartay ninkii guriga marka ma joogo waxay tiri waxaas oo dhan waxba iga sii daran guriga ciyaal baa jooga gabadhan iyo ninkan in isqabaan un baan ogahay in ciyaal isu dhaleen iyo waxa warmahay ciyaal baa jooga saddex ciyaal guriga jooga saddexda ciyaalkee guriga jooga waxay tiri hadana markaan arkay naxdin kala igu dhacday sababtoo ah waxaan isleeyahay dareer dhan oo nin xaas loo ciyaalo baad iska jeceshay macquul ma hadda inuu ama ku jeclaado ama kula hadlo المهم waxay tiri gurigii baan marba iska fiirfiiriyaa marba fadhigii baan sida u taabtaa waxa laga yaabaa xataa koobkan shaaxa ku cabays inuu shaax ku cabay waxa laga yaabaa halkan aad fadhiisatay inuu fadhiisan jiray waxa laga yaabaa miisku fadhiisan jiray ku cashayn jiray weeyaan waxay tiri aniga fikir baan galo gurigii baan fiirfiirinayaa koobkan fiirinaya mar weelashan mar gabadhii quruxdeedan fiirinaya hooyadii iyo gabadhii Faaduma way sheekaysanayaan anigu waxay tiri de waan baxayba waan maqanahay gurigan iyo fikir iyo meel kale aan aaday mar dambe waxay tiri macallimadii garabka saa iga taabatay waxay tiri Ishraaqay haye maxaa kugu dhacay maxaad la fikiraysaa maadnala sheekada ma nagu soo darsatid ma nala sheekaysatid ma waxaan idhi bay tiri adii hooya iska sheekaysanayo dhib ma leh iska sheekaysta wax inuu iga qaldan yahay marka wax iga siihay bay dareentay macallimadu waxay tiri maanta marka okay ma tahay horta maanta maxaa kugu dhacay ma aan idhi wallahi madaxa ay xanuunay maanta si waan u yara caajisanahay ma ihi hooyadii waxay tiri marka hay waynu baxaynaa marka taada hayn guriga baynu aadaynaa sidii baan waxay tiri ku soo macasalaamay gabadhii ma arkin ninkii Caadil ha carruurtiisii iyo xaaskiisii iyo gurigiisii iyo meeshuu fadhiisan jiray iyo miisku ku cuntayn jiray koobkiisii iyo weelku shaaxa ku cabi jiray waxaas basaniyada ku soo dhisanayaan soo arkay gurigeygii baan ku soo noqonay gurigii markaan saa ugu soo noqonay qolkayga intaan galay oo albaabka hoosta ka soo xidhay baan waxay tiri daaniga iscanaantay marwaan iscanaanta miyad waalantahay horta Ishraaqay adigu miyad waalantahay maxaa kaasiya
qof aan warba kuu hayn baad iska jeclaanaysaa gurigiisaad iska tegaysaa ma aragta horta xaaskiisa ay qurux badanta yaa khasaara waad khasaartay jacayl khasaare baa ku haya dee qalbigaygiyo mid waalan tahay dee qofkani waa inuu kaa baxaa mar aniga qalbigaygiya waxay tiri caqligaygi hays dagaalaan meeshii waxaan ku dhaxanaaqsanaado oon murugeysnaadaba xataa hooyaday way darantay inuu wax iga qaldan yahay aabbahay wuu dareemay inuu wax iga qaldan yahay ameenkii si fiican uma cashaynin muddaan iska murugeysnaa laakiin waxaan go'aansaday dib dambe Faadimo gurigeeda inaan u tagin iskuulka marka lagu soo laabtana inaan bedesho waan ka baxon idhaahdo iskuulka ma rabo sababtoo haddaan macallimad Faadimo arko caadil baan soo xasuusanaya caadilna jacayl xadka baxaan u qabaa markaan soo xasuusto dee ilin baaba iga soo yaacaysaba maba isxakameyn karayaba si aanan caadil u arag oona u soo xasuusanin waa inaan Faadimo arag iskuulka dhan waa in la iga bedelaa iskuulkii baa la furay iskuulkii waa la iga bedelay iskuul kalaan aaday hooyaday xataa waxay tiri mar walba waxa soo wici jirtay Faadimo maalintii aan gurigooda aadnay isbarteen nambarka guriga iyo nambarka gurigooda kala qaateen si fiican bay isula xiriir jireen hooyaday iyo macallimad Faadimo saaxiibay ba noqdeenba waxay dhahday gabadhii Ishraaq ahayd waxay isku day jirtay mar walba macallimad Faadimo inay hooyaday soo wacday tirada Ishraaq ka waran sidee bay tahay xaaladeeda hadda may fiican tahay kulli ma garanay sababta laakiin iskuulkay bedelatay iskuulka intayna bedelanin xataa sibay gabadhu waxba sibay yar ahayd waxaan dareemay inuu wax ka qaldan yahay bal la sheekayso bal waxa ka qaldan soo ogow wayba ii warwaraysaaba ana ninkeeda ma raba inaan ka qaato iyaduna ana ii walwalaysaa iskuulkii baan waxay tiri muddo iska dhiganayay waan dhameeyay marka iskuulka bisi dhameynayay 17 jir baan markay caadalka jeclaanayay iskuulkii baan dhameeyay waxay tiri jaamacad baan galay anigoo 19 jir oo jaamacad dhigta oo waxay tiri caadalkii aan jeclaa wali sidii qalbigayga uu ugu jiro qof kale haduu ila hadlo wiil dhalinyaro haduu ila hadlo macallimiinta kale jaamacadda wiilasha jaamacadda qof kale qalbigayga uma furi karo qof kale si xataa ilna xariis kuma eegayo halka qof baa qalbigayga ku jira qofkaas waan ogahay marka mustaxiil inay tahay inuu ama jacayl ila wadaaga ama ay guursado waxa soo dhan waan ogahay laakiin ma garanay sababta jacaylkiisa qalbigayga baan ku haystaa saas ay tahayna waxaan isku dayayaa intaan ka fogaan karo inaan ka fogaado intaan is ilowsin karo aan is ilowsin laakiin isma ilowsin karayo waxay dhahday marka maalin maalmaha kamid telefoonka gurigayga la soo waco xilli galab anoo guriga jooga waan qabtay waaba caadil laftirkiisi caadil weeyaan qofka i soo wacay anigii waan yaabay wuxuu yiri waa Ishraaq sax markaas telefoonka uga qabtay markaas aan idhaa waa Ishraaq khayr soo dhow wuxuu yiri marka waxaan doonayaa inaad noo timaadid oo aan ku casuumo sideed u aragta hadii aan ku casuumo markaas aan idhi tiri maya ustaad caadilo iga raali noqo waxa tahay nin xaasle aniguna waxaan ahay gabadh yar oo aan ka yarahay marka iga raali noqo ana casuumadii waxa ma garanay wuxuu yiri bismillaahi calayk maxaa kugu dhacay xageed aaday fikirkaaga waxa ku aaday waxaan ka wadaa hadii aan kugu casuumo xafladda dhalashada wiilkayga curad wiilkayga caawa loo qabanaya xafladii dhalashada marka macallimad Faadimo Said bay ku jeceshahay mar walba way iga ka sheekaysaa mar walba way ku amaantaa inta soo jeer baan maqlay macnaha iyadoo markasta ka sheekaynaysa saas darteed baan doonayaa inaan kugu casuumo xafladda dhalashada wiilkayga ka waran ma nagala soo qayb gali kartaa ma imaan kartaa dadka yani la casuumay baan kugu darsanaya ka waran ها waxaan idhi tiri عفوا karaali noqo yani si qaldan baan wuxuu fahmay ana si qaldan wuxuu fahmay hay waan imaanaya waa hagaag waxay tiri marka waxaan sameeyay wuxuu igu yiri kama dhacayso xafladu guri waxay ka dhacaysaa hotel intuu ii sheegay hotelkaas waxaayadiisa bay ka dhacaysaa waxaan u sheegay hooyadii aabahay lacag buu isiyay wuxuu igu yiri macallimadaadana hadiyad u soo iibi cunuga yare dhalashada loo dhigayna u soo iibi hadiyad suuqan tagay waxaan soo iibiyay tiri katiin qurux badan katiinada qalinka quruxda badan oo magaca Faadimo oo ku qoran yahay oo ugu tala galay macallimada oo bokiskiisa hadiyad gaar loogu soo riday iyo cunuga yarka oo hadiyad ah labadii hadiyadood baan guriga keenay waxay tiri anaa make up iyo wax iska marmarsay toob yar iska basidan iska xidhay aad waxba iskuma sii qurxinin hotelkii baan tagay qaybtii maqaayada markaan galay qaybta maqaayada markaan saas u tagay waa la xidhayba xajis baa lagu sameeyay qaybtaas dhan ee maqaayada yani qayb dhan baa la xidhay oo ina cidina joogin hal qof bas fadhiya waa ninkii caadilaha kaligi dadkii xafladda qabsanay aaway cunugii dhalashada loo dhigay aaway taan u sii socday waxa tirsadoo meel miis fadhiya baan dul istaagay markaan ku soo dhawahay buu istaagay wuu islaamay wuxuu yiri soo fadhiiso waxaan ku yiri xafladii wuxuu ana ku sheegay xafladii soo fadhiiso waan fadhiistay waxaan ku yiri hay xafladii aaway wuxuu horta waan ka xumahay inaan been ku sheegay wax xaflad ma jirto cid dhalasho loo dhigayana ma jirto kaliya waxaan rabay inaan kula kulmo inaan kulana rabay maxaan ka kulmaynaa aniga adi marka dad kulmi kara ma nihiin islaamay ekin isku fac ma nihiin xaas baad leedahay dee wuxuu yiri bal u kaadi horta iyadoo xaas la leeyahay qof kale lama hadli karo miya
ilaa markan maanta ku soo wacay xaas baad leedahay in badsanka iga marmarinaysa dee xaas baad leedahay de nin xaas le maxaan kala hadlaa maxaan ku sameeyaa maxaa ma garanayo qof xaas le si aan ula hadlo wuxuu horta bal isdaji macallimad Faadimo wallahi way ku jeceshahay markasta way ku amaantaa wallahi amaanteeda been ma gabadh wanaagsan baa tahay ninkii sidoo u hadlayay calaa kulli xal warkii oo kooban wuxuu igu dhibay tir ishraaq waan ku jeclahay de ishraaqay waan ku jeclahay saaid baan waliba ku jeclahay markaad iskuulka joogteen meelaha waxay tin intaan istaago oo macallimada galaaskeeda xafiiskeeda isagoo ama sii galay ama ka sii baxay meelaha aan ka arki jiray buu isaguna meelaha iga arkay inaan soo eegay inaan fiirinayo miyuu arkay ma waxbuu dareemay ma waxa aniga igu jira isagana ku jiray anagoon is ogeyn ma garanayo waxay tirtay wixii ugu roon ku jeclahay ka waran jacaylka adduunkaaban ku qabaaba ya salaam halkaan rabay roob ma igu helay oo ruuxan doonayay jacayl ma ila soo doontayba weeyaan basheekadu gabadhani ninkay nafta iskaga bixinaysay intaas oo sano isku daysay inay is ilowsiisa isagii baa soo doontayba waa halkaan rabay roob ma igu helay gabadhi yartaad waxay tir waxaan ku roon ka soo fikiraya is adkaynaysaa waxay tii is adkaynaya anigu waan ku jeclahay intaasoo sanaan ku jeclaa aniga ka daran waxaas maymay dumarka dhaqankooda maaha waxaas si kasta ninka hadaad u jeceshahay uu kula yimaado jacayl kugu yiraahdo waan ku jeclahay waan ka soo fikirayaa iyo haye iyo waxaas la iska dhaha laakiin anaga ka daran ana xataa intaasoo sanaan ku jeclaa ilaahow ma 10 sano jeclaatid 10 sano adoo jeclaa haduu qof kugu yiraahdo waan ku jeclahay أنا حتى وان كجعلها إياه وان كجعلها إياه نو وحاس إن ترهديد معها هدي كلا دقن كدمر نمدا ملي هذا وات كبحس هدمر نمدا كفدي واحد تروح نقول عنك صوف فكرة هي بالواي هي بل أوكي هي هو هذه ذهن ما يسكسو تبي تبي واحد المحن صوتها ميان صعدا ميان دولة ملوها نكون صعدا بلان بالس ميان نقضي ميان ناس كلا جرنا يبقى إنا صعدا إنا تاجنا هيبقى إنه إسكلا جرنين baan maqaayada ka soo baxay malaha tartiibaan u socday ninka miyuu idaba socday ma garanayo mar aan iridka ka sii baxayo unbu ila hadlo igu yiri kaalade anaa ku sii qaadayo guriga ku geynay inaan ku sii qaadaan rabaaye ha ma sii qaadaysa ha haye gaadhiga waxay tir soo raacay gurigiibu i keenay yaa salaam ilaa waan soo dahay batan ismaba ogeyn cabaar baan sheekaysanay waan isla cashaynay cabaar baan waxay tir maqnaa waxaan guriga soo galay marka aabahay qolka fadhiga jiifa iyo hooyada soo jeedan wali seexanin هذا هو يقول قيل واحد رواد صوت ضهضي جورج تلفون كيسان سديت شهر وعي جورج تلفون كيس عيد إجماع قبنا يسوع محرد عي جورجي وحي وعي سامركا معلمة فاطمة يعني كده عادل هنت اسكو حناقين بيشو معلمات دي انت عرورتي هدينا قاعدة بي وحي يكون مقان تايبا جورجي وهالد كده جورجي مركا واعد لا وحنكور بيتر هوي سؤالي كوش هاي حفلة عنو غير لا شدي سو اني هوتيل كدا عايسين جورجي كدا عينين انا واحد المركا مو اوغي سبب تلفون جورجي لو قبن واي ها waxay tir waan iloobe guriga inay ka dhacaysan xafladda u maleynayay waa guriga telefonkiisa soo wacay waa la qaban waayay kadibna waan ku weynay waan walwalnay aabahana waa ka hadda halkan uu ku gamay balkici aabaha yaa ku keenay markaasaan idhi batir caadil de macallimad Faadimo odageedii ma isagoo kaligii ha ku keenay maya idhi batir muxuu keenay dad badan buu guriyahooda geegeynayay ana dadkaasaan ku jiro gabdho fara badan oo arday iyo waxba xafladda yimid haye waxay tir waxaan kiciy aabahayna intii aan hooyada u sheegay baan u sheegay qolkooda galeen way seexdeen ani maseexad baa ii yaalade maseexad baa ii yaala qolka sida u dhex boodbood marba muraayad hor istaag marba suurayso anoo loo iguursanayo anoo jacaylka markii la ii sheegtay aniguna aqbalay toob anigoo la ii xidhay anigoo taash madaxa la ii saaray anigoo adduunyada ilaahay marqaantay waan marqaamay waan iska seexdo waxay tir sidii ma jaamacadeedii iskaga dhiganayay aniga ninkii caadil bartaasa waxaa nooga bilaabmay jacayl معلمة فاضمة مركز تلفونك guriga iyaga soo wacdo in arko iyadoo soo wacayso ama hooyadii la hadlaysa ama numberkeeda aan arko waxay tiri waa nixjir ishraaq wadnaha igu jiray sababtoo macallimadan ninkeedii way heshiyeen guriga dib ay ugu soo noqotay xanaaq yar cadheer waxan baa ku soo kala dhaxgalay cadhadii iyo wixii oo dhan way ka baaeno caadi bay iska noqotay marka macallimadan waan jeclahay ixtiraam baan u hayaa laakiin ninkeedii baan ka shukaansanaya waan ka xumahay macallimadeedii sida fiican waxay soo bartay ninkeedii inaan la sheekaysto laakiin maxaan sameeyaa jacayl baa ahayay jacaylku in dhamale oo da'ma yaqaano oo aqli xataa male waa majnuun maxaan sameeyaa waxaan sameeyaa ma garanay waxay tiri si kas ah baan uga carcarari jiray markay dhahdo ama ishraaq telefoonka iigu dhiib ama iyadoo i weydiinayso markaan maqlo ishraaq aha markay dhahdo waxay tiri qolka fadhiga waan ka bixi jiray qolkaygaan galaa albaabka soo xidhaa wax akhrisanayaan iska dhigaa musqul baan galaa waan ismeermeeriyaa si أنا معلمة فاطمة تلفون كل يقول يبين أنا معلمة فاطمة إسولها هذلين أنا نينكي واحد استعلان نبأ وهذه إيه كان هذه ذا حد كبحوا إيه كان
ninkii wuxuu noqday nin gacan furan oo deeqsiya oo fariida oo faxala hadiyadu saas igu soo daadiyaa wax walba ii keena meeluhu igeeyaa wuu dalxiisiya markii hooyaday igu tiraahdo waxa tiri qoyskan isoo korsaday hooyaday iyo aabahay dad waxay wanaagsan naxariis badan fiican muslimiin laakiin waxyaalo badan oo waxay tiri waxa jira aan ogaaday anoo weyn inuu xaraam yahay waxyaabo badan waxay tiri hooyadan ani soo korsatay gabadh muslimada ahayd laakiin ma xijaaban jirin qayr muxajaba aniguna sidoo kale waxay tiri ma xijaaban jirin cid xijaab xidhay iguma oran xijaabkani inuu waajib yahay waxaas dhanba waxay tiri gadaal ban anoo weyn ka fahmayba sababtoo markay yareed cunugtina 5 sano meelahaas 4 sano bar soo gaadhay xanaana lagay iskuul baa lagay iskuul iyo maadi baa la barayba diini waligeed lama barin quraan lama geynin waxba si fiican waxay tiri diinta islaamka waan haystaa oo de waan ku dhashay islaam baan qoyskan waa islaam waxta waxay way tukadaan abahay hooyaday anu xataa mararka qaar waxay tiri waan tukadaa salaadu iyo saxna nin ajnabi in gacanta lagu salaami iyo waxaas inay qalad tahay in kala ma kala garanay inay timahay qaawanaadaan in kale waxaas waxay tiri si fiican la ima soo barna qoys iska si u yara munfataxiina bay ahayn iska yar furfuran marka haddaan idhaahdo wiil baan la sheekaystaa baan ku warbatin marka abahay hooyaday oo hadiyadahan ii keena oo ii jecel oo dalxiis igeeya ima yiraahdaan marka hadiyadahan maxay yihiin qofkan muxuu dalxiiska ku geynaya qof inaad raacdid waa qalad waxa soo dhan igama sharxaan aniga ninka caadil ah waxay tiri jacayl miyaa la yiraahdaa mise todobada soomida u sareysa kurkeeda inaan marayna amal halkaas waxay tiri jacaylkeegu maraya ninkii waxaan ku warbatin marka jacaylkeenu aakhirka halkeebu ku dhamaan doonaa artuu ku dhamaanaya أنا وحى يعني مركل استعلاء ضل أشياء كاستدت قوي بالله ما ويسكور سدان ويسصاد دونتان هاي سادربتا ده حلوان كصاد دوننا يا أو كجور سنة يا كجوري شعيل كان ملح بوكودا معنا يا وين كجور سدو أو اللي بيروح يقول بيتري مركل حل جا فصح بالجلي لو يكذب فصح وحبر شوين كان الجلي مركل سدا هذا لو يكذب فصح لو جاره أو كصاد دوننا يا هو يقولي مركل سام كوري بيتري أنا مرة لكن نن حاصله إن أنكور سدو إيش رأيك nin xaas la anigu inaan guursado ma rabo wuxuu yiri marka maxaad ka wadaa maxaan ka wadi lahaa anigu ma rabo nin xaas la inaan guursado maalinka waxa tii uu soo qaaday guriga iyagu keenay guriga hortiisaan taaganahay nin xaas la ma rabo inaan guursado aan ku yiri gaarigiisa iskaga dagay guriga iska galay waan ogahay markan saaid in uu jecel yahay caadil oo xataa hadaan ku dhado xaaskaaga fur oo furayo laakiin macalimadaydi Faaduma in la furo ma rabo macalimada waan jecelahay reerkeedu inuu u dhisnaado waan rabaa laakiin anigu qalbigayga markaan eegana ده وإن أنانية نقطة أو أنا نقول قف سلف شيء أنا نقطة ويانا جعل كي جدا هي هولها يجرع هلا فرف هذا محمي مقلين معلمات ديني تامر كان صح حسستنا وحنا لهم ماي أساس حصمين gurigi baan soo galay waxay tiri guriga markaan saas u soo galay waxaan soo galay hooyadii oo qolka fadhida oo telefoon ku hadlaysa oo macallin Faaduma laftirkeedii la hadlaysa way ismac salaameeyeen marka telefoonka sii jarayeen kadibna waxay tiri waatana ishraaq way soo gashay macallimadii baa ila hadashay waan isa salaanay salaanka bacdi khalaas waxay tiri waxaan qiyaasaya wax kadib inuu odageedu u yimid sababtoo gurigayaga iyo gurigeedu aad ma kala fogeen qiyaas 25 daqiiqo isu jirnay ninkii waxay tiri ilaan waxaan ku yiraahdaa anigu nin xaasla inaan guursado ma rabo isaguna uu jecel yahay ana waan jeclahay markii dambe wuxuu ii soo bandhigtay arin ah haday kaarun tahay oo nin xaas la guursanaynin anu xaaskayga waan furayaa sababtoo ani xaaskaygu isma fahano ani xaaskaygu ciyaalka dartii baan isula joognaa idan ciyaalka dartood bay guriga u joogtaa aniguna ciyaalka dartii maxay ciyaal marka saas tirteed xaaskayga waan furayaaba haday adiga ka dhab tahay hayabaan idhibaytir marka anigu ma doonin in xaasla inaan guursado hadad xaaskayga furaysid ninkii de wuxuu bilaabay marka marmarsiyo iyo dagaal iyo maala yacni xaaskiisii inuu saas u daandaansado oo deesanka ka marmaro waa la istagaalay waa la isku buuqay gabadhii gurigoodii bay tagtay gurigoodii markay tagtayna wuxuu gabadha waa furayaaba gabadha waa ma furaya markuu yiri gabadhi waxay dareentay ninkan inuu dan leeyahay oo meel u socdo waa la isqabsaday waa la wada hadlay wuxuu yiri gabadh baan doonayaa inaan guursado gabadhan ma rabo gabadhii tamirkii waa ishraaq kulha uu sheegayba gabadhi waxay tiri macallimad Faaduma ahayd oo xanaaqsan oo hadii xanaaq nafta haday qof bini aadan uga bixilaad ay uga baxayso yaaban iyo macna hooyadeed gurigayga hay maadaan anoo guriga ka maqan hooyadeyba waxay tiri war lagu sii dhuray marka guriga xilliga ay imanayaan Faaduma hooyadeed waxay joog hooyadii aabahay way u warameen wax walba u sheegay Faaduma gurigeedu sababta ishraaq inuu u burburo hooyadii aabahay xanaaqsan way Faadumada guriga joogtay waxay tiri albaabka soo garaacay saantan albaabka u taabtay macnaha hal mar dhawdu gambaleelkii waxay tiri Faaduma soo ordo dadka dhan ka soo hormartay oo albaabkii furtay saantii albaabka u furtay بيتري يا خرابة البيوت يا خضيفة الرجال ضي واحد تربح الربحهم بين ده إيه صوت أنا يابن سنت أنت وأركب فاضمة واحد تري وان يابن حسين مع فاضمة قولي كاني ربح هذا يقول تعالى واحد تبغى قبطي وأسكب بودني وأنا لك قبطي واحد تري هو إذا أنت إدي شيء يدو إدليس يدو أنا كلا قبني سو هذا إدليس دي
bay waxay igu dhex tuurtay qolkiiba igu soo xidhay dadkii way iska tageen marka ma cabaar bay guriga sii joogeen markaas un bay yimaadeen miyaa ma garanayo dadkii markay tageen baa albaabkii la igu soo garaacay aabbahay hooyadii waxay igu yiraahdeen bal albaabka fur albaabkii baan hoosta ka furay way soo galeen aabbahay hooyaday aabbahay waxay ugu tiri balukaadi horta dagaal iyo buuq iyo waxaas maaha gabadha si degan baan ula hadlaynaa waxa la igu yiri gabadh yar baa tahay haddaad soo kacaysaa 19 jir baa tahay jaamacad baad dhigataa waxbaad baranaysaa maxaa kaa maqan adduunyada wax yaala oo kaa maqan miyaa jira maanta ood u baahan tahay may nin naag leh oo caruur leh maxaad u guursanaysaa ayuu kugu wata marka ood guur ugu heshiinaysaa maad noo sheegtid hooyaday aabbaha ma nihin soo inaad wax noo sheegtid maaha waxaan ku dhibay jeclahay caadil ma dambi baan galay anigu qaladkan galay muxuu yahay nin un baan jeclaaday diinta islaamkan ka baxay macnaha nin baan jeclaaday waana guursanaya hadduu xaaskiisa furayo iyo hadduu qabayo iyo hadduu caruurtiisa xaaskiisa gaadhiga marsiinaya xataa ani waxba igama galin waxay tiri aabbahay wuu yaabay wuxuu yiri ma ilmihii yaraan anigu soo koriyey wax walba ku soo tarbeeyay baa qofka saan u danaystaha saan u selfishsan noqday waan aamin la ahay ninka reerkiisa caruurtiisa xaaskiisa waxba kaama galin waxba igama galin macallimadaada waxba kaama galin abadan markaasuu yiraahday aabaha iyo hooyada wax ma ka galeen marka aabaha iyo hooyada hadaan nahay anaku wax ma naga ka galeen mise macala anaka waxba naga ma ka galin yaani dantaada oo kaliya fiirsanaysa ma waxaan dhibay in aabaha iyo hooyada baa tihiin idin kama maarmi karo ehelkaygi baa tihiin ehelka lama lihi yaani idin kama maarmi karo idinka waxba igama kan galin inaan idhaahdo ma dhici karto hay waxay ugu dhibtay aniga hooyada ninka inaad guursato raali kama nihiin gabadha reerkeeda inaad dumisina raali kama nihiin ninkaas iska daa ma deynayaan dhibtay lagama yaabana inaan daayo sababtoo ah waan jeclahay waxay tiri darbaaxo aabahay indhaha igu fujiyo wuxuu yiri xisho darana gabadha yar oo indha adaga maani horteedaad waxa ka leedahay ha hortaadan waxa kale waxay hooyadin waa taxanaaqday labadoodiba way idileen waa la idilay qolkii waa korka la iga xidhay bartaasaad ku xidhnaanaysaa bari ma baxaysid telefoon ma ku hadlaysid caadil ma arkaysid jaamacadna ma aadaysid idin taalaabaan dhibtay marka qolkaasaan ku xidhnaanaya ama waan dhimani ama qolkaasaan ka soo bixo caadil baan guursan jaamacadna ma rabo wax kale ma doonayo wuxuu leeyahay bay tiri marka aabahay maamadii baa celcelinaysa ana qolka ku xidhan ma banaanka ka maqlaa yaa xasrati yaa wayli alla khasaarayay alla tarbiyadeedii baa khasaartay alla hada ilmo quman korsan lahaa wuxuu xisho darana wax khasaare ahaan soo korsaday khasaare maamadii waxay leedahay maya saas maaha gabadh waa dhalinyaro sug bal horta waan waaninaynaay bal horta u kaadi labadeenuba yaani dagaal un baan la galnay bal horta bal u kaadi si fiican baynu ula hadli doonaa bal u kaadi way isbedeli isma bedelay suuritan indhaheedan u jeedaayo wallahi tu isbedelaysa ma aha wala imaamadan waxay leedahay isbedeli ninkii caadil ha galab walba guriga u yimaada aabay hooyadii u yimaada wuxuu radaa gabadhana raba in la isiyo gabadha la isiyo xaaskayga waan furay anaana rabin marka hore waan istagaali jirnay ismaana fahmi jirin ishraaq darteed iskumaana furin anaga danahayga isu fahmaynin gabadhan ha la isiyo laguma siinayaa leeyahay marka gabadhaniyo iska tag gabadhan laguma siinayo maamadii waxay tiri ma badhici kartaba ninka xaaskiisii xumeeyay macallimada ahayd mutacallimada ahayd wanaagsaneed hooyada fiicanayd xaaska fiicanayd inaan gabadhayda siiyo anigii waxay tiri mar kasta oo la i weydiiyay waxaan ku adkaysanayaa waan rabaa waan guursanayaa anigu macallimad la furayn waxba igama galin macallimad dhimatay iyo reer baaba in waxba igama galin dunida oo dhan haday rugmanaysa hadda waa dunida ma deynaya caadil waxa la yiri markaa caadil laguma siinaye armada waxbarashadaadii iska aadaa oo qolka ka soo saarnaa oo jaamacadaadii iska dhigataa oo naga dhaaftaa jacaylkan iyo waxaad sheegaysid maay isaguna wuu i rabaa ana waan rabaa sabab aad igu diidaan meesha ma taalo waxay tiri marka hooyaday waxay weydiisay iyadoo aabahayna uu la joogona wada maqlayaan ninkii aad la sheekaysan jirtay ee raaci jirtay ee hadiyadaha ku siin jiray sheegi jirtay ma caadil buu ahaa caadil hortiinin ma jeclaanin ba anoo 17 sano jiraan jeclaaday حتى مركان جعلاني 17 سنة إيمو بحسمين لحية وانجر بانها وإلا لحية وانجر كاقي ما تجعليدها وإلا لحية وانجر كاقي ما لشي كيسين ترتو حتى ربين بان شاقي حتى وحان لها إلا لحية وانجر كاقي ما تجعلا ولشي كيسين تري ونميلها إسوراع ترني أو waxay tiri xataa qaladkii de cimriga ugu weynaa baan galay si la iisiyo oo ninkan aan la iigu diidin waxaan rabay ilaa lixdan jirkayga waan jeclaa oo aan israaci jirnay wax aan dhax marina maba lahaba cid kale oo guursanaysa ma jirto hadeedan caadil iyo guurinin khalaas odayga dhiig baa ku karay wuxuu yiri waan dilayaa tan kaw baan ka siinayaa kaw wallahi billahi inaan kaw ka siinayaa oo inay noolaanin maamadii waxay tir marka gashay kala celcelin ma yahay hadilin waruka hadilin haday idilaan waxay tir reerkani sidii odaygani haduu yiraahdo xataa gabadhayda waxaan ku dilay waxaan la yiraahdo waxaan ay dhahan qasl al-aar iyo waxaan ay qatl sharaf ka dhahan gabadhu intay qalad gasho wax saasa qofku ilmo uu soo korsaday kuma dili karo sababtoo ilmaha reerkan may dhalin de dawladuna way ogtahay inaynan dhalin iyaguna way og yihiin
sida qof jidkaas maraya inay dileen baa loo maxkamadeynaya loo xisaabinaya haddii dilaan gabadh dheer sababtoo ah gabadh dheer dee muu dhalin ba nasabkiisa ma aha way soo korsadeen waalid un bay u yihiin wuxuu yiri marka wallaahi oo billaahi haddayna ahaan lahayn qof aan mas'uuliyadiisa qaaday oo aan soo koriyay gabadha waxaa ku hadlaysa idoo i hortaagan wallaahi inayna ii noolaateen hadday ahaan lahayd anigu qof aan dhalay walle waan dili lahaa kawbaan ka siin lahaa bas waxa la yiri marka caadil baa lagu soo caadil ma rabtid caadil baa lagu siinayaa kuma naqaano isma naqaano ka soo qaad 19 sano ku soo korinaynay waxaanu dadaal iyo hanti iyo maal iyo muruq iyo xoog iyo waqti ku galinay sadaqa ilaahay ha nooga dhigo markii hore badir ilaahay baan ku soo qaadin ku soo korsanaynay balaayo jid laga soo helay oo wax qeyr sharci ilmo ku dhashay marka horeba oo hooyadii abeedintii soo hor istaagtay nin baan jeclahay oo raacay oo wax walbaana dhaxmaray oo hala isiyo waan xishoonin aad waxa tirtay wax kasta inta la igula hadlay ma waxaas ani marayade ani jacaylkaygaan rabaa baa sidaa waxa tir reerkii ay igu soo eriyeen maryahaygii waxay guriga iga yaalo dhaan la igu soo bixiyay oo caadilkii aan ku raacay ni caadil xageen aadni marka caadilkii de markaan guriga baa la iga soo buriyay kaale adi dartaa baa la ii soo buriyay intuu ii mid buu yiri ana hooyo iyo aabo iyo walaal iyo jacayl iyo oday iyo sanad iyo cid kasta ku noqonay maada bini aadan u baahan ba aanaad hayso tahay gacanta intuu qabtay waxa tir gaariga i saaray maxkamadan aadnay maxkamadii baan ku yiri marka ninkan aan rabnaa inaan isguursano waxa la yiri gabadha waliil caadigeeda aaway ilmaha dadkii waliil amrigeeda ahaa dadkii dhalay aaway waxaan dhibatan kuleejka agoontan ku soo koray reer baa soo korsaday reerkiina waa isdagaalnay ilmaha noocaas oo kala marka ay dawladdu meelaha dawladda ku soo qoray dawladda ka mas'uul hooyo aabo oo ah maxkamadda guurin karta marka qaadiga ugu horeey maxkamadda jooga guurin kara sababtoo gabadhan waliil caadigeedii cid meel ku og ma jirto waliil amrigeedii cidna meel kuma oga waxa la yiri marka waa lagu guurinay ninka waa hagaag waa sax sidii baan waxa jirnay caadil soo guursanay gurigii baan tagnay guriga aroos ma jiro waxba lama xirxirin lama diyaarinin waxba de guri iska caadi guriga la tagay waa gurigii Faaduma macallimad Faaduma gurigeeda laftirkiisa waxay tiri tagay gurigu waa guri weyn oo waa qaybta saddexaad qaybta labaad waxa degan ninkan walaalkii qaybta ugu hooseysana waxa degan caadil hooyadii iyo gabdha ay dhashay iyo baa degan qaybta labaadna waxa degan caadil walaalkii waa guri weyn reerka dhan isla degan yihiin reerka dhan gabadhii Faaduma ahayda wanaagsaneed ninkan inuu furay way ka xun yihiin gabadhan yar ee macallimada ay Faaduma u ahaan jirtay iskuulka dhiganaysay yartahay uu jecel yahay jacaylkeeda la waalwaalanayo reerkeedii u dumiyay way ka xun yihiin reerka dhan waxa jira qof si fiican iyo salaamay qof isoo dhaweynay midna ma la guriga baan qaybta ugu sareysay tagnay gurigu de waa guri caadi ah oo islaantii la dawliba ka maqan tahay dayacan oo bilaa nadaafado waxa jira rafaadsan guriga markaan saas u tagnay baan bilaayo guriga inaan hagaajiyo inaan nadiifiyo shaax baan soo sameeyay shaaxi baan isagoo iska baxay aniga guriga baan si hagaajiyay maalinkii dambaan israacnay suuqaan tagnay alaab cusub iyo waxaan soo iibsanay guriga wax ka bedelnay dhar baan soo iibsaday toobab iyo dharka hurdada iyo shopping iyo waxaan soo iibsaday kadib dahab baan soo iibsaday coffeer baan tagay gurigayga waxa kulada week markaan degnaa kadib baan coffeer tagay oo anoo qurux badan oo labisan oo maalin kale intaan guriga imid baan dad aroos dhiganay amal iska dhigaynay markaas waxa tir anigu la hooyada iyo aabahayga soo korsaday walaa macallimadii la furay reerkeeda uu dumay ولا عادل عرورتيسي wax iga galay male sababtoo qofkan jeclaa waan helay isaguna sidaas oo kale u taagan yahay qofku jeclaa uu helay guriga waxa degan baytin marka qaybta labaad nin la yiraahdo Muxsin oo ninkan walaalkii oo ka weyn caadil walaalkii oo ka weyn ninka la yiraahdo Muxsin marka caruur baa u joogta saddex ciyaala saddexdiisa ciyaalka waxa ku jirta gabadh dhexda ku jirto ilaa iyo waxay tir 16 jir meelahaasa wiil baa ka weyn gabadhna way ka yartahay waxa la yiraahdaa Marwa gabadhaas la yiraahdo Marwa سبحان الله العظيم يا أنيقا waxay tiri sida markana loo arko waxaan anigu markaan gabadha arko fa waxaan isiraahdaa batir ma muraayad hor taagan tahay sida aan iskugu egnahay saas bana loo soo kala jeexay batir aniga gabadha Ilaahay awoodiisa saaid bay iigu eg tahay wax yar markaan guriga joogay oo bilaabay kor inaan ka soo dagoon xaafadda hoose u soo yaro dago anoo baxay anoo sigile dadkii guriga joogay markay arkeen waa ninkan caadil hooyadii iyo walaalihii iyo xataa ninkan Muxsin xaaskiisa qof kasta wuxuu dhihi jiray subxaanallah gabadhan iyo Marwa saaid bay isugu egyihiin kaana inay yihiin mataano mar walba waxay tir on gabadhan arko waan yaabi jiray waxaan isdhihi jiray talo adiga gabadhan haddaan waxay tir isku da ahaan lahayn anaa ka weyne waxaaban isdhihi lahaa malaha mataanaatihiin ba reerkanad malaha ka luntay sababta meesha agoonta lagugu tuuray maxay tahay maxaa lagugu tuuray talo meesha agoonta ku geeyay reerkanaaba ku dhalay aniga gabadha waxay tir aad baan iskugu egnahay isku ekaansho marka shakliga wajiga oo kaliya ma aha حتى طبيعة ديدا سيدي واحد ليسو مركي فريسانيسو مركي هادليسو gacmaha taagtaagayso waxyaabaha ay jeceshahay waxyaabo badan bay waxay tiraan gabadhaas aan iskaga midnahay mar walba oo gabadhaas arko fikirkaygu meel fog buu aad jiro waxaan isdhihi jiray talo adeeg gabadhan
maxaad isu tihiin gabadhan marka waxaa dhalay nin la yiraahdo Muxsin oo Caadil walaalkii oo ka weyn oo waxay tiri faasida dee faasid bimacna alkalima ruux bini aadan oo dhaalima hajuu jiro lunsan oo baadi cad ku sugan wuxuu imaanayaa batri guriga isagoo khamraysan mararka qaar isagoo dhacdhacaya mararka qaar waxa macquul ah inaad subaxii markaad soo kacdo aad aragtid Muxsin oo iska jiifa jaranjarta gurigiisa iyo guriga hooyadii qaybta ugu hooseysa meesha u dhaxaysa jaranjarta barta isagoo hurday inaad aragtid baaba laga yaabaa oo xalis aqbarkii intuu guriga yimid isagoo sakhraansan soo dhacdhacay intuu isir gurigaaga aad jaranjarta ku gamay oo halka hurdo madaxiisuna uu hoos jiro lugihiisuna kor barta isagoo saas u kala qalafsan inaad aragtid baaba laga yaabaa waxay dhahday marka maalin xataa waxaan arkay isagoo mantagaya markaasaan isla wuu dhimanayaa Allah ambulance baan u wacay waxaan idhi nin baa xanuunsanaya nin baa dhimanaya ha laga soo gaadho dadkii gargaarka degdega dadka u fidinay markay yimaadeen dadka guriga jooga dhan way yaabaya idin wacay qof baana soo wacay anigii baa idhi waxa xanuunsanaya Muxsin wuu mantagaya waa sakaraad sakaraad yeemale waxaan daroogaystaha meelahaas weligiiba ku mantagaay nimankii waxa lagu yiri raali noqdo iska taga ninkan waa daroogaysto isaga khamri iyo balaayo iska badiyo ma garanaysid marka qofkan wuxuu saan u yahay marmarka qaar waxaan arki jiray bay tiri habeenkii oo kale marmar hadaan hoos u soo dago marmarka qaar hadaan caajiso meelaha iska socdo guriga dhexdiisa ama aan qaybta hoose soo aado ninkii ama jarjarta fadhiya ama meel luuqa fadhiya ama gurigiisa hortiisa iridka fadhiyo ooyaya darbi saa ugu tiirsan oo ooyaya oohin xaq leh waxaan isdhihi jiray marka mararka qaar qofkan show ma laha dhibaato haysata yaa ka waramiya wax ka waramiya armu u baahan yahay islaantan sodohday waxay tiri guriga qaybta hoose degan iyo gabdhaheedu gabdhaha iyadu ay dhashay qaar aan la guursan qaar garoob oo intay niman soo fureen guriga degan iyadii saddex gabdhood ee dhashay guriga qaybta u hooseysa isla degan gabdhahaasi ima jecla macallimad Faaduma ay jeclaan waxay tahay ima jecla way islaamaan imana dhibaan ima aflagaadayaan laakiin waxaan dareemayaa inayna jeclaan jidhka iga diidayaan hooyadu sidoo kale islaantan la yiraahdo Muxsin xaaskiisa ay saddexda caruurta ah dhashay macallimadii gurigan qaybta sare deganaan jirtay waxay taani dartay loo furay malaha saaxiib ahaan jireen ma garanayo iyaduna mar walba markay aragto waxay indhaha igu gubtaa inay nacabtahay baan dareemayaa marka ninkan Caadil u sheegan inuu qoyskiinu ima jecla hal qof ima aqbalayo si fiican ima salaamay wuxuu dhigi jiray qoyskayga maxaad ka rabtaa adiga qoyskaagii soo ana igamaad soo go'in de maxaad ka rabtaa qoyskaygu dhigi jiray marka ana qoyskaagii ah ana adduunkaagii ah ana jannadaadii ah ana wax kasta ku ah de waxaad u baahan tahay oo dhan ana ku cidna waxba uguma baahnid ha marka san dhigi jiray cidna waxba uguma baahni ninka walaalihii hooyadii weligiin bakfurka ii taagtaaga maanaba idin baahan waxay tiri de cimriga sadmadii maalinkan waxay tiri baranaya Caadil hadda qof bini aadan maana baranin albaabka jaxiimada oo xidhan marmalaha isku furay ma garanayo tiri sababta aan isugu furay ma garanayo sababta aan Caadil u jeclaaday ma garanayo tiri sababta yani dhibaatada inta la eg ay ugu dhacday wax Ilaahay qadaray inuu ahaay ninkii la oran jiray Caadil 2 sano badh baa reer lahayn 2 sano badh markaan reer lahayn buu wuxuu yiri waxaan rabaa inaan isbitaal tagno ilmaan u baahanahay laga yaabo dawooyin yari waxayna u baahan tahay laga yaabo maxay inaad u baahan tahay isbitaal baan tagnay waana la soo baaray waxaan lagu yiri marka jawaabta u soo laabtay jawaabtii aan soo laabanay waxaan lagu yiri marka dhakhtarada qolkeeda dhakhtaradiina baadhaysay bay ku jirtaa jawaabtu dhakhtaradii baan u tagay waxaan ku yiri jawaabtii baan rabaa waxaana ishraaq waxa la ibaadasho la subaxii waqtigii baan sheegtay waxay tiri waxaan rabaa odaygaaga u yeedh markay tiri waxay tiri waan nahay waxaan ku yiri haduu wax jiro ama xanuun ama aan ahay qof aan dhalayn ama wax haduu qaldan yahay aniga ii sheeg ma waxay tiri odaygaaga u yeedh anu waxba jira kuma dhihinbe odaygii baa loo yeedhay waxay tiri banaanka soo baxay Caadilkii baan u yeedhay waxaan ku yiri kaale aniga Caadilkii markaan soo wada galnay waxay tiri waxaan ii weydiinayaa ma waxa tiin qaraabo mad meel ka tiin habar wadaag ilmo abti qaraabo ma yatiin ma yaan nirwiir wax qaraabo ah oo aan leenahay ma jirto wax qaraabo ma tiidin may wax haba yaraatee meel ad qaraabo ka tiin ma jirto maya shaqo iyo shaqo isku malihin hay waxay tiri marka jawaabaha soo baxay waxaan dareemayaa inayna jawaabo kaafi ahayn oo idin ku filnayn baaritaan kale u baahnay baaritaan kale la idin ku celinaya marka hadda dhiig iyo waxba la idin ka qaadaya kadibna week kadib aad soo noqonaysaan jawaabta yaa ilaahi jawaabta week kadib loo soo noqonay talo maxay tahay maxaa jawaabta week kadib loogu soo noqonay dib male waxay tiri adigu jawaabta waxaad soo noqonaysaan week kadib